madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay dafcadii labaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Golis University ee Berbera. waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo maamulka gobolka Saaxil iyo sidoo kale maamulka jaamacadda Golis iyo xubno sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. hadal halkaas ka soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu si weyn ugu mahadnaqay ardaydaas iyagu ka qalin jabiyay jaamacaddaasi Golis qaybteeda Berbera, isagoo sidoo kale tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay mar walba diyaar u tahay taageerada iyo wax la qabashada ardayda wax baranaysa ee ka soo baxaysa jaamacadaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. isagoo u soo jeediyay ardaydaasi qalin jabinaysa iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland inay isu kaashadaan sidii ay dalkooda wax uga qaban lahaayeen isla markaana ay horumarka dalka uga qayb qaadan lahaayeen. waxaa kaloo runtii bogaadinaya mambaleysiinaya aasaasaha jaamacadaha Golis iyo macallimiinta ku soo tabacday intii hore u soo meelaha kale soo qalin jabisay iyo inta maanta halkan xafladooda bishan maanta October 20 ugu dabaaldegayno macallimiinta ku soo tabacday runtii iyo anigana waxaan mambaleysiinaya sababtoo ah waxa weeyaan maanta dadkeena wada ogtihiin awoodda dhaqaale ka maraysa wada ogtihiin macallinka iyo ninka jaamacadda ay maanta ujeedadiisu jaamacadeena abuuritaankooda la abuuray waxay ahayd lacag samay in lacag looma jeedin ujeedadana waxay dalkeena la dhiso in nin walba wixii uu aqal iyo cilmi leeyahay iyo ninkii adduunyaha yaaba ku daro oo dadkeena laga saaro jahliga iyo lagu tartamaya laakiin maanta nina lacag ka muursadee waxa lagu dhigo ogtiino caalam jaamacadu qiimaha lacagta la qaaday iyo halkay maray wada ogtihiin تعليمتي بالبيت ده كتجي أنا بتعرف كلام عنه الحكومة كلها ضن هاي كلها يبدأ تبرع كتجينا وحنا خاطرين وكم فانا إنه بربرة وحقنا أيضا قبل بيدهان كلها ركوب السماء لها هذا بربرة ركوب ككوبات بوها كلها ما أنت كلها يبدأ بربرة ولا يقولي ما أنت هو عاصمة الله صلى waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu isaguna si weyn ugu mahadnaqay ardaydaasi isagoo guud ahaan bahanbariyay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacaddaasi Golis Berbera waxaana uu ku tilmaamay ardaydaasi inay kaalin weyn ka qaadan doonaan kor u qaadista adeegyada waxbarasho ee gobolka Saaxil iyo guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ardaydaasina ku bogaadiyay inay halkaasi ka sii wadaan aqoontooda. waxa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland oo labadooduba si weyn u soo dhaweeyay ardaydaasi ka qalin jabisay jaamacaddaasi Golis qaybteeda Berbera waxaana ardaydaasi u rajeeyeen inay halkaasi ka sii wadaan kor u qaadista iyo dadaalka ay ugu jiraan sidii ay wax u baran lahaayeen. waxa kaloo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Ali Cilmi iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabshukuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa labadooduba wax lagu farxo ku tilmaamay ardaydan ka qalin jabinaya jaamacaddaasi Golis ee qaybteeda Berbera waxaana ay tilmaameen in dafcadani tahay tii labaad isla markaana ay si weyn ugu faraxsan yihiin inay maanta ay arday qalin jabinaysa ay ka soo baxdo jaamacad ku taala magaalada Berbera. waxaan inaan xuso waxbarashada ama waxbarashada ay ka qalin jabinayaan ardaydani waxaan leeyahay waxa weeyaan hadba furii qaadateen waxbarashada gaar ahaan qolada neersi ama kalkaaliyaasha oo gobolka Saaxil aad baahi weyn ugu qabay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lana qaybsanayaa farxadda sharaf iyo maamuus iyo karaamada noo ah naga ardayda qalin jabinaysa ee gobolka waxa kaloo iyaguna halkaasi hadal kala duwan ka soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadaha Golis University ee Soomaaliland Professor Saciid Ahmed Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Berbera Engineer Nasir Xaaji Cali Shire oo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay ardaydaasi kuna tilmaamay dafcadii labaad ee ka qalin jabiyay jaamacaddaasi Golis Berbera iyagoo ka warramay taariikhdii iyo marxaladihii adkaa ee ay ardaydaasi soo mareen iyo waliba duruufiyaha adkaa ee xagaagii ay wax ku soo baranayeen. markii la tartamay ee tartan meel walba la isugu geeyay ee Hargeysa la isugu yimid ee ay galeen waxyaabahaynu barano civil engineering ugu horeeyo ardaydii markay galeen imtixaano kuwii dibadaha ka yimid iyo kuwii waddanka wax ku dartay kuwii Golis baa isu noqday 1ka iyo 2ka iyo 3ka iyo 4ka iyo 5ka Golis kale marka
waxaana ay tilmaameen in jaamacaddaasi Golis University ay ku soo kordhin doonaan qaybteeda Berbera iyo guud ahaanba Jamhuuriyadda Somaliland qayb MBA ama master oo ay ardaydu ay wax ka bartaan si ay u sii wataan heerkooda jaamacadeed. waxa kaloo iyaguna halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin iyo marti sharaf ka soo qayb gashay munaasabadaasi isla markaana ardaydaasi hambaliyay soo dhaweeyay ardaydaasi labaad ee iyagu ka baxay jaamacaddaasi Golis University. ardaydaasi kala duwan iyagu maanta ka qalin jibiyay jaamacadda Golis University qaybteeda magaalada Berbera ayaa waxay ka qalin jibiyeen qaybta maamulka iyo administration iyo sidoo kale qaybta caafimaadka waxaana noqonaysa dibcadii afraad iyadoo ardayda maanta qalin jibisay ay tiradoodu kor u dhaafaysay ilaa 50 arday. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland intii uu ku sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa waxa uu sidoo kale booqday xarunta weyn ee Al Nuur ee magaalada Berbera oo iyadoo ah xarunta koowaad ee uga soo dego qalabka kala duwan ee furniture-isku. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta gobolka Saaxil oo booqday goobtaasi weyn ee Al Nuur ee magaalada Berbera ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenku halkaasi ka jeediyay hadallo muhiim ah oo ganacsatada Somaliland ku dhiirigelinayo inay ka qayb qaataan maalgashiga dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii waxa ka mid ahaa runtii waan ku hambaleynaynaa cid kasta oo reer Somaliland maanta oo dunida dacaladeeda hanti ku haysatan waxaan ku dhiirigelinaynaa in sida walaalahooda ay yeeleen ay u yimaadaan oo maalgashaan dalka fursado badan baa yaala oo iyaguna ay ka faa'iideystaan dalkooda uga faa'iideeyaan maalgashigaasi shaqo abuur ugu sameeyaan ummadda dhalinyarada reer Somaliland ee soo kacaysa aadna ugu hambalyeynaa waan salaamaynaa. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera.